siyaasi aadan gaadaale oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland ayaa xoolo nool gaarsiiyay ciidanka Puntland ee ku sugan gobolka Sool sidoo warbixintaasi inoogu hayo wariyahayaga Yuusuf Cabdi Shire. xaaladda ganaansho ayaa ka jirta deegaanada hoostaga deegaanka Tukarraq oo ka tirsan gobolka Sool halkaas oo ay la wareegeen gacan ku haynteeda ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo xilli aroora weerar ku soo qaaday halkaas deeqdii ugu horeysay oo xoolo noola ayaa waxa gaarsiiyay ciidamada Puntland ee ku sugan jiida hore ee gobolka Sool siyaasiga aadan ciise gaadaale oo sheegay inuu ku dhiirigelinayo difaaca ay ku jiraan ciidamada xoogga ee Puntland marka hore Colonel Jimcaale Jaamac Takar oo ah taliyaha ciidanka kumaandooska ee Puntland oo warbaahinta kula hadlayay jiida hore ee ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland ayaa uga mahadceliyay siyaasiga aadan ciise gaadaale deeqdan xoolaha ah ee uu soo gaarsiiyay halkan waxa weey waa jiida hore ee gobolka Sool waxaan ugu soo baaqday aadan ciise gaadaale oo ah siyaasi Puntland taakuleyntii adarkiisana noo keenay aad baan uga mahadcelinaynaa arrintaas meesha u joognana waxa weeye waa hadii arrintii anagu aan la xilsaareen dhannahay ciidanka Puntland waxaan diyaar u nahay inaan difaacno dalkayga hadee siyaasiga waa uga mahadcelinaynaa xaq buu u leeyahay inuu taageero anagu inaan difaacno xaq baan u leenahay xuduudaha Puntland waajib inuu tahay inaan difaacno qadasa kuna dhiman ninka soo dulay ninkii gidoof ku yimid garoodiisa waa Soomaali maamada ninkii gidoof ku yimid garoodiisa aan saartan leeyahay duqaadkii waa soo dhamaaday waxaan maranaa siyaasadda Puntland ay ku faanaan gorowaan tagaynaa kalmadaas waxaan maranayaa in laga gubi doono ana ka gubayna insha Allah waqti dhowgaana reer Puntland dhagood wax ku farcamay maqlayaan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh siyaasi aadan gaadaale oo ka hadlayay xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaankaas ayaa ugu baaqay nabadgelyo dadka walaalaha ah ee wada degan halkaas wuxuu dhinaca kale ku dhiirigeliyay ciidamada Puntland difaaca ay dalkooda ugu jiraan hadday labada wax kala tabanaya iyagu dhamaysan karaan ay dhamaystaan haddaysan iyagu dhamaysan kareenna dad kale oo walaalahooda oo badan oo Soomaaliya oo labadaba dhinacba khayr la jecel baabuuxa ay dhex galaan oo nabad lagu dhamaysto ma weynaan ka waantoobin 30 sano maalin walba qofkii xoogaa isbidaa inuu dagaal qaadayo arrinka inaan ka waantoonaba inoo fiican waxaan oran lahaa dadka ka faa'iideysanaya dagaalka dadka walaalahooda oo ama qofkii siyaasadda ku raadinaya ama boos ku raadinaya ama lacag ku raadinaya walaalle ma fiicna walaalka dhiigiisa inaad wax ku doonatid oo wax ku heshid waxaad heli kartaa walaalka dhismihiisa inaad wax ku heshid taas baanu marka dadka leenahay dadka walaalaha ah oo hadda taliyaha Jimcaale ka mid yahay ciidanka halkan jooga uma joogaan inay dal ku duulaan waana waxyaabaha ugu nimi inaysan dal kale ku duulin oo walaalahooda kale dagaal ku qaadin laakiin walaal raba inuu gurigaaga ka saaro war gurigayga iyo deegaankayga walaal iga saarine hadda nabad ila soo dagaysi diyaar baa Ilaahay ila soo dagay meesha uu jooga difaacaas xaq weeye markaas oo kale dariiq waxa diintu ay qabto weeye qofka sidaa isagoo gurigiisa iyo reerkiisa difaacayo oo aan walaal kale duulaan ku ahayn iyo cid kale doonayn sidaas gurigiisa ku difaaca xaq buu ku taagan yahay cidii kula dagaalantaana dulmi bay ku taagan tahay hadduu qofkaasi wax dilo wuxuu dilay xaq buu ku dilay haddii isaga la dilo nabigu wuxuu yiri shahiid weeye jannada hore ka galaya hatta durubtii hore u lahaa Ilaahay waa u saamaxay maxaa yeelay naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo ummadii Soomaaliyeed buu difaacaya kala saari mayno ummadda la difaacaya ma waqooyiba ma koonfurba ma bariba midna eegi mayno dalkeena oo dhan in la difaaco cadow dibadeedna in laga difaaco midka gudahana in laga difaaco taas baanu ku taageeranaa ciidankeena waxaan maanta ku